asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalaha meel walba aad joogtiin waan islaamayaa soo dhowaada waa walaalkii shakuur oo in muddaa ka maqnaa channelkan oo haddeertaan jaanis u helay in uu video soo geliyo waxaana insha allah isku dayayaa wiigii hal video inaan kusoo tuuro oo aan ka hadlayo xaaladdu meesha ay marayso xaalad aad u cakiran dhanka dhaqaalaha baan ku jirnaa sidaas darteed laakiin waa waqtiga aadka looga faa'iideysto sida dadka hore ee lacagaha sameeyey ka sheegaan rumiya bemiya taasi waxa waaye waa su-aal kale laakiin waqtigaana aadka markuu adag yahay waa waqtiga laga faa'iideysto badanaa sida ay sheegaan because waxaan xaaladahan adag laguma jiraayo lilabad mar baa laga baxayaa laakiin markii laga baxo position fiican inaad ku jirtid waaye dhanka kriptada dhanka stoga dhanka real estate-ka waa dhulka marka videoga maanta waxaan rabaa inaan bal aan isla fiirino aan waxa wiigii hore ka dhacay wax yar ka horena waxaan ku jiray clubhouse-ka asxaab badan oo igu qaali ah nala joogay oo ayakana aan maxaa la dhahaa ii sheeg ka wareystay xaaladda suuqa wiigi hadda lasoo dhaafay by the way haddaad clubhouse aad ku jirin mase aad la soconin inaan clubhouse furno linkiga hoos baan soo dhigaya insha allah noogu imow maalinta isniin walbo markii 2 saac habeenimo ay tahay waxaa noo furan clubhouse-ka asxaab badan oo ku jirto suuqyadan ama kripto ha ahaato ama maxaa la dhahaa ii sheeg stock ha ahaato ama dadka dhulalka jecel oo ka hadlaya dhulalka ay ka xataa iyo guryaha way inoo imaadaan waan ka wada hadalnaa almost more than 2 saacadood ilaa 3 saacadood baan ku jirnaa marka insha allah waa kugu casumaya noo imow channelka haddaa ku cusub tahay by the way channelka 3,000 uu gaaray waxaan rabaa inaan u mahadceliyo asxaabta ku xiran channelkani asxaabta kalsoonida siisay channelkan haddaa xooga saari lahaa waxaa laga yaabi lahaa inuu intaan kasii badnaado laakiin waqtiga ii saamix waaye inaan maxaa la dhahaa xooga saaro laakiin waan u mahad celinaya anyone oo ku jiro 3,000 iyo dhaadhace oo ku xiran qolkan ama somfintech ha ahaado telegramka ha ahaado maxaa la dhahaa clubhouse-ka ha ahaado channelka youtube-ka qof walba oo ku xiran waan u mahad celinayaa haddaa ku cusub tahana waxaan jeclaan lahaa inaad nagu soo biirtid subscribe-ka channelka noo saartid channelkan waxaa ku jiro a lot of video aad ka faa'iideysan kartid oo ku saabsan cryptocurrency khaasatan waagii hore cryptocurrency xooga saari jirnay laakiin hadda waxaan rabnaa inaan wixii aan ballaarino aan ka dhigno stockii dhulalkii wax walba oo faa'iido laga helaa insha allah marka waxaan leeyahay soo dhawaada dhammaantiina waxaan rabaa keliya haddirtaa inaan idinla share gareeyo information oo aan dhowr meel ka soo qadqaaday oo ku saabsan wiigii hore xaaladda si ahayd suuqa suu ahaa taasaan rabaa inaan videogan marba inaan dheereeyo markaa saas darteeda waan soo gaabgaabinayaa insha allah marka waxaa ku qoran meeshani qoraagii qoray anagoo isagana u mahad celinayno waxaan leenahay what happened in the market last week wiiga waa 37 wiiga waa 37 waa wiigii hadda lasoo dhaafay wiig walba number buu leeyahay marka numberka meel ku qorta wiigii hadda lasoo dhaafay waa 37 2020 iyo labadii kalendarka ahayd 2022 kalendarka wiigan hadda aan ku jirnayna waa 38 sidaas la socda insha allah marka wiigii hadda lasoo dhaafay xaaladda suuqa siday ahayd wiigii hadda lasoo dhaafay waxaa soo baxday daatadii ku saabsaneed inflationka sicir bararka maxaa la dhahaa ii sheeg xaaladda ay marayso bishii august soo baxday marka wiiga haddaa mar kale ku noqdo wuxuu mathalaya wiiga waa wiigi waxa waaye September 12keeda ilaa September 28keeda taas waa wiigii 37 marka wiigan dhacdadii ugu weynayd waxayd in la soo saaray inflation datadii oo August xaaladii August sidee ahayd marka
hadda u noqdo inta qoraaga markii la soo saaray bahashaas waxay noqotay sidii la filay ma noqonin marka kuwaas kulay nambarada gadaalaan ka arki doonaa laakiin waxaan rabnaa inaan ogaano kow markii nambarada la soo saaray waxaa dhacay oo suuqii qalqalu galay oo suuq wuxuu u noqday suuqa maalinta ugu adag maxaa la dhahaa khaasatan stock marketka haddaan ka hadalno wuxuu ahaa maalin aad u adag u ahaa uu soo dhacay waxaad dharbaaxa lagu dhuftay real estate-ka guryaha iyo telecommunicationka wax walbo tech ku saabsan sida facebooka kuwa intel iyo chip maxaa la dhahaa kuwa chipka sameeyo waxa badbaaday oo maalinta badbaaday oo lacag sameeyeen waxa ka mid ah energy-ga iyo health care-ka ma fahanteen maxaa la dhahaa kaliya ma ahayn Mareykanka xataa UK German Spain ayadoo xataa daatadeed aad bay u sareysay wuxuu awaaye 9.1 inflation uu noqday bishii August marka haddii aan u noqdo safxadan aado oo aan ituso inta dhan ay ku qoran tahay macluumaadka informationkii why did the stock market drop information intuu ku qoran yahay ma fahamtay the inflation wuxuu ahaa 8.3 for the August year on year waxa lower than July wuxuu ka hooseeyaa oo bishii toddobaad 8.5 uu ka hooseeyaa laakiin waxaa la filayay inuu noqdo 8.1 baa la filinayay laakiin 8.1 lama imaanin wuxuu noqday 8.3 markaasay baasha suuqi dhan wareer iyo jahwareer noqday taa waxaa keenayso wiigan hadda tan 38aad wiigan waxaa la sugayaa bangiga dhexe inuu interest rate-ka ku daro marka waxaa taas haddana qalqal keenayso in wax badan lagu daro baa interest rate-ka 7.5 baa lagu darayaa mise full hal baa caadi loogu darayaa waa ilaa haddartaan lama ogo marka ayadana waxa waaye mid kale oo la sugayo marka taas aa keentay in uu suuqa aad u dhaco waxaa ka mid ah fiir haddartaan energy-ga hadday markaan ku dhahay energy-ga waxa waaye kuwii kambaniyada ka faa'iiday waaye kambaniyada ka faa'iiday maxaa sectorka ka faa'iiday wuxuu ka mid ahaa 5.7 buu ahaa all the week 7 days baa profit buu ku jiray green buu ku jiray health care-ka haddaa aragtiin xataa asagu xataa waxaa ku jiray isheg 3 greenkan kale consumer-ka asagana 1.35 waaye marka tech haddaan ka hadalno meeshan tech 30.24 minus buu ku jiray telecom hoos xataa 0.61 real estate-ka asaga xataa minus buu ku jiray 2.81 waqtiga igu yar saa darteed marbi inaan videoga badiyo waxaan rabaa videoga gaaban inuu noo noqdo sida haddaa inii sheegay maalinta ugu xumeyd bay ahayd sanadka maalintii talaadada ahayd 13 waxaan malaynaa inay talaadada ahayd suuqa markuu soo dhacay waa maalinta ugu xumeyd the worst day bay dhaheen taasna waxaa keentay numberka keenay macalinka number mar walbo numberka macalinku ah bisha 9 2022 minus wuxuu galay SP 500 waa 500 oo ugu waaweyn kambaniyada ayay ku dhan markii hal box la geliyo minus waxay galeen 4.32 bishii shanaad 28deeda 4.04 bishii lixaad 23deeda 3.38 bishii afraad 29keeda minus 3.63 bishii shanaad shanteeda
2022 minus 3.57 marka midka ugu weyn waxa waaye minuska numberkan waa minus 4.33 saas darteed waxaa la dhahay bis kulli sanadka waxaa ka dhiman almost 3 bilooda ka dhiman marka waxaa noo dhiman October iyo November iyo December ka dhiman marka still sanadkii ma dhamaanin laakiin ilaa haddartan from January ilaa haddartan waa suuq maalinta ugu xumeed record buu qaatay waa bisha 9aad 13deeda waa wiigii hore hadda la soo dhaafay okay haddaan aadno suuqi saasuu inflationkii markuu soo baxay suuqii markii la ogaaday xaaladda suuqi waa soo dhacay uu soo daatay marka okay haddaan aadno BTC videoga rabaa inaan soo yareeyo BTC markaan aadno wiigi wuxuu ku xirmay guduud buu ku xirmay wiigi wuxuu ku xirmay guduud hadda wuxuu marayaa 19,496 buu marayaa laakiin waxaa laga sugayaa inta ugu badan waa tan weekly waaye daily haddaan dhaho moving average 200 moving average waa ku koreeyaa wax walba way ka koreeyaan haddii daily kala dhaho moving average 20 moving average MA 20 moving average ka MA 50 moving average ka all way ka sareeyaan price action ka way ka sareeyaan markay ka sareeyaan xaaladda aad ay u adag tahay waxaa laga yaabaa inuu xataa hadduu kor uu soo aado inuu noqdo maxaa la dhahaa resistant inuu noqoto uu ku soo noqdo waa la soo celinaa laakiin sida loo badinayo haddartan waxa waaye meesha laga sugaayo sida ugu badan tahay meelahan waaye aan qaadno horizontal line u sameyno waa 15,000 adiga waa 15,000 maruu imaaday haddaa xasuusatiin mise 17,000 waa kan hal hada ما 17,000 واي مروا 17,000 imaaday waa markaan waxay ahayd 28 bisha 6 2022 markaasuu imaaday marka ilaa markaa kor u kacay waxaan u malaynayaa inuu markaas ka kacay uu sameeyey ilaa 43% oo profit buu galay kabacdi haddana waa la soo celiyey marka hadduu jabsado kan meeshaan hadduu jabsado because supportiga ugu dambeeyay waa 27,594 aan u malaynaa inuu yahay hadduu jabsado marka waxaa kaloo laga sugayaa adii inuu imaado inuu imaado 15,000 meelahaas inuu imaado 15,000 14,000 meelahaas inuu imaado aa laga yaabaa laakiin lama yaqaano meeshuu imaan doono markaan fiiri haddaasaan u fiirino si fiican u dejino hoos meequu imaanaya 27,619 buu noqonayaa marka we will see meeshuu noqon doono kole isbuucan xaaladiisa ma fiicno BTC laga yaabo in la soo tuuro oo hoos la keeno laakiin waa ogaan doonaa xaaladda meesha ku dhamaanayso laakiin haddii weekly aan fiirino maanta isniin ay tahay suuqa wuxuu ku soo xirmay minus buu ku xirmay suuqa wuxuu ku xirmay minus
wuxuu ku furmay maxaa la green still green waaye waxaa u dhiman aadi tusaale waxaan u malaynayaa 5 saacadood inay u dhiman tahay mise 3 saacadood ay u dhiman tahay meelahaas 3 saaca u dhiman 3 saaca u dhiman hadda waa green marka waa arkaynaa wuxuu ku xirmo caawa asbuuci ka hore wuu green u ahaa asbuuci kasii horeeye wuxuu ahaa green asbuuci kasii horeeyana wuxuu ahaa hadda nambarada wiigyada haddaan sameyno tusaale wiigan wuxuu ahaa wiigii 37 wiigan wuxuu ahaa 36 wiigan wuxuu ahaa 35 wiigan wuxuu ahaa 34 saas iyo saas marka asxaabay aad baan idin kaaga mahad celinayaa waana isku dayayaa insha Allah inaan soo dhigo dhowr video ku saabsan crypto dhaqaalaha iyo stocka marka aan isla socono insha Allah channelkana hala taageero clubhouse-kana maalinta isniinta aan isku imaano insha Allah waan salaamayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته